السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ميل كستو أجوبتان إيه سي كستو آت نو داوانيسان waxaa jira dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo inta badan ka cabanaya amaba uu hayo xanuuno ay ka mid yihiin suuxdinta oo xilliyada qaarkood la arkayo dadka suuxdinta qaba oo dhacaya iyo dad sidoo kale ka cabanaya xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababaan xididda istaabta iyadoo qofka la arkayo inuu galayo jawi waali ah qaybtoodna dadku ay baqayliyaan haddaba xanuunadani iyadoo aan la isticmaalin daawooyin dhakhtar uu soo qoray ayaa si dabiici ah loo daaweyn karaa waxaa jiro miro lagu daaweyn karo oo aan filayo qof Soomaali ah in uusan hore u tijaabin in uu ku daaweeyo xanuunadan haddaba mirahaasi maxay yihiin sideese qofka loogu daaweynayaa waxa inoo faahfaahinaya Sheekh Xamse Axmed waxaa jira dad suuxitaan leh oo suuxa waxaa kaloo jira dad wayradu istaabtaan amba xididadu istaabtaan oo dabeetana qayb waaliya gala marka maanta insha allahu tacaala waxaan kula wadaagayaa daawadii laysaga daaweynayay suuxitaanka ambase xididada istaabta wayr kasta oo wayr kala taabta waxaa ka dhasha shoodkaas wuxuu markaasi ku keenaa shakhsiga bilaa-aadmiga ah qayb waalida ka mid ah qayb markaasi ka mid ah suuxitaanka qayb ka mid ah inuu shakhsigan jidhkiisa waxyeelo isku geysto waxaa jira dadka qaar laba wayr markay istaabtaan madaxa iska garaaca oo madaxooga derbi la dhaca ambase dhirbaaxo la dhaca amba shay kale ku garaaca waxaa jira dadka qaar marka ay wayradu istaabtaan suuxaya oo miir beelaya dhulka ku dhacaya isna ogeen wixii uu ku dul dhacay iyo qaabkii uu u dhacay kadibna waxyeelo soo gaadho shakhsigaas waxaa jira sida oo kale dad sida ay u wanaagsan yihiin ay u sheekeynayaan ay u caafimaad qabaan laba wayr intay istaabtaan carara oo laga daba cararo oo lasoo qabto dabcan xanuunkan waa xanuun jira in uu shakhsiga wayra istaabtaan dadka qaarna way ku suuxaan oo way dhacaan khasaaro iyo dhibaato iyo waxyeelaa soo gaadha dadka qaarna way ku waashaan oo xuska iyo miirka ayaa ka taga dadka qaarna wayradu markay istaabtaan waa la calcaliyaa oo way cararaan kadibna waa lasoo qabtaa waa la calcaliyaa insha allahu tacaala maanta waxaa halkan diyaar inagu ah daawadii intaasba daawo ka ahayd suuxitaanka iyo wayrada istaabta iyo qofka oo waali gala markay wayrada qaar istaabtaan daawadii oo fudud oo easy ah ayaa halkan inoo taala agteeda waxaa yaala 4 midho oo ka mid ah midhaha laysaga daaweeyo xididada qofka markaasi istaabanaya midhahan dabcan haddii aan ku tuso bismillah midhahan dabcan haddii aan ku tuso waxa weeye midhahanu insha allahu tacaala waa kuwan waa midho bun ah waa bun waad garanaysaa dabcan waa bun ila eeg insha allahu tacaala waa kan waa bunkii aynu naqaanay waa bun saloolan hadda u fiirso saaniha kaaga dhaadhacdo waa bun saloolan weeye waa kan aan ku soo dhaweeyay kaamarada wakaas waa bun saloolan bunkaas insha allahu tacaala ayaa daawo ka ah xididada istaabta oo dhan xididadaasoo xanuunada aynu sheegnay keena inuu qofku suuxitaan yeesho inuu qofku cararo oo la calcaliyo iyo inuu qofku siduu u miir qabo u fiican yahay u waasho mar keliya marka bunkan ayaa insha allahu tacaala daawo ka ah oo ka daaweynaya shakhsiga xididadan istaabanaya dhammaan isku soo duuduubo xididada istaabta oo dhan bunkan ayaa daawo ka ah bunkanna dabcan adigaas waad arkaysaa waa midhaha bunka ah waa midhaha saloolan ee duban ee bunka ah marka see la isugu daaweynaya dadka waxay idhaahdaan haddii la cabo dhiigga ayuu yareeyaa marka la cabo
dhiigga ayuu yareeyaa, soo jeedna uu leeyahay. bunku soo jeedna uu leeyahay, dhiiggana uu yareeyaa. dabcan waa run. marka la kariyo ee la tumo ee la daqiijiyo ee la cabo ee markaasi la walaaqo uu dareero noqdo, dabcan bunkanu dhiigga uu yareeyaa, waa run. saameleel iyo hurdo la-aanna uu leeyahay. shaqsigii shaqaynaya bunka hadduu cabo inuu soo jeedo raba, dabcan uu soo jeedaa insha allahu tacaala. marka waxaynu ka hadlaynaa inagu sidee ayuu daawo inagu yahay, oo uu daawo markaasi inagu yahay bunkanu. inaga wuxuu daawo inagu yahay markuu sidan yahay, bunka ayaad soo qaadanaysaa, waad saloolaysaa, waad dubaysaa, si fiican baad u dubaysaa ood u saloolaysaa. kadib markuu saloolmo sidan oo kale uu u dubmo 4 xabo subaxii salaada hore marka aad tukato, amba salaada hore intaanay qoraxdu soo bixin, intaanay adceedu soo bixin, 4 xabo oo noocan ah oo sidan u duban, si wanaagsan u duban ayaad cunaysaa. 4 xabo markaad subaxii cunto, habeenkii gabalku markuu dhaco bacda cishaayi isagana 4 mid baad cunaysaa. yacni waa subaxii intaanay qoraxdu soo bixin 4 xabo ayaad cunaysaa. habeenkii markuu gabalku dhaco bacda cishaayina 4 xabo ayaad cunaysaa. ma karinaysid, qaxwana ka dhigi maysid, shaah ahaanna u isticmaali maysid, bun ahaanna u isticmaali maysid. isagoo sidan ah oo saloolan oo duban ayaad insha allahu tacaala 4na subaxa hore cunaysaa, 4na habeenkii xilliga dambe aad cunaysaa bacda cishaayi iyo wixii ka dambeeya insha allahu tacaala. markaad intaas joogteyso eed intaas muddo ilaa iyo 15 cisho ah aad cunto, waxaa furfurmi doona oo kala tegi doona oo mid walba booskiisii iyo positionkiisii degi doona xididadan isku soo dhawaaday ee markaasi istaabanaya. xididadan istaabanaya isku soo dhawaaday way kala durki doonaan, mid walbana wuxuu tegi doonaa positionkii lagu talagalay iyo booskiisii ayuu tegi doonaa. marka baaraka allah fiik. waa hagaag, waxaan filayaa inaad ka wada bogateen isla markaana aad fahanteen sharaxaadda oo sheekh xamse uu ka bixinayay sida loo isticmaalayo bunkan, isla markaana loogu daweynayo xanuunada ay ka mid yihiin suuxdinta iyo xanuunada ku dhaca dhinaca madaxa amaba maskaxda ee xididada istaabta, taasi oo sababta qofka in heer waali ah uu gaaro. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo janalka Bulqaas Media, naga ilaawin inaad subscribe, follow, aadna soo tiraahdo weliba like-tana aad noogu darto. sidoo kale mowduucan isku day inaad share garayso si dad badan uu u gaaro oo ay uga faa'iidaystaan. haddii aadan xanuunsanayn oo xanuunka aadan qabin, qof walaalka ah ama saaxiibka ah ayaa qaba, ee fadlan share garee oo u gudbi si ay markaasi uga faa'iidaystaan. wixii talo iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commenteska. waad mahadsantihiin.